السلام عليكم صاحبيال isku soo noqod wanaagsan muuqaalkan waxaan ku baran doonaa sharciga Google AdSense dabcan Google AdSense waxa uu leeyahay qaybo badan balse waxaan ka hadli doonaa qaybta markaa website-ka dabcan website-ka marka aan ku leeyahay wax kala maaha website-kaaga marka aad samaysato waxaad ka samayn kartaa lacagtaas oo aan cadad lahayn dabcan waxayna ku xiran tahay mar walba traffic-ga ee dadka soo booqanaya lacagtaas tusaale ahaan waxa lagu siinayaa markuu qofku website-kaaga soo booqdo oo xayisiinta uu arko dabcan waxrajayna faan insha Allah dabcan xayisiinta lagu sheegay wax kala ma aha waa sida dabcan xayisiintan hadda aan ku sii doono xayisiinta halkan website ka soo muuqanaysa dabcan hoos adoo baxdo website-kaaga xayisiina badan ayaa meel walba ka soo muuqanaya taasoo ay tahay oo Google AdSense ay lacag ku siin doonaan dabcan waxrajayna faan insha Allah hadaba waxaan ka hadlaa inta badan qaababka kala duwan ee markaa website aad adiga leedahay lacag looga sameyn karto dabcan okay waxa jirtay hadda website-kan aan hadda intusay wuxuu ahaa website WordPress soo kale hore waxaan u soo sameeyay ama hadda waxaan wadaa dabcan hadda waxaan wadaa course WordPress oo aan dhamaan balse hore waxa u jirtay course aan sameeyay oo markaa ku dhisaynay blogger dabcan haddaan soo tuso course-yadii markaa aan blogger ku dhisay soo kale waxaan ogaaday inta badan dhalinyarteena inay haysan mobile dabcan waxa ku sameeyay course-kaas mobile dabcan waa qaybtan iyo qaybtan waxaan ku sameeyay mobile oo qofku wuxuu ku sameysanayaa mobile u isticmaalaya طبعا إلا يو قيبتن قفكو داودو وebsite دميسترن أو آديات وحبضن أيو سميسانيا طبعا أوكي سو كله هذانا قيبت بلاي ليست آيات كهليسة سيسكو حجان سأركيسو website دميسترن أو بلوجر أو آديات وحبضن طبعا وكان قيبتن آيات كهليسة وحول website بلوجر لوجا بهاي قيبتن أيام كسمية ومركا وحن كقري sida website loo sameeyo oo $50 oo lacag ah looga sameeyo full course okay soo kale qaybtaas waxay ahayd qayb markaa website-ka blogger-ka ku sameeyay mobile soo kale computer ayaan ku sameeyay oo markaa course dhameystiran ayaa computer ku sameeyay oo dhalinyaro badan ay sameystaan oo hadda AdSense-ga ay lacag ka sameeyaan ama website-ka ay lacag sameeyaan dabcan qaybtaasna waxay ahayd dabcan hadda in soo tuso qaybtaas dabcan waxay ahayd dabcan saarkayso qaybtan halka sac soconaysa waxa ku sameysanaysaa sida website loo sameysto blog waxaad ku sameysanaysaa website dhameystiran oo aad iyo aad u qurux badan aad ku sameysanaysaa oo markaa AdSense-ga aad dalbanayso soo kale waan kala qaybiyay markii hore qayb ayaan kala dhigay markii dambana waan soo raacay balse hadda waxa jirta waxaan wadaa course markaa WordPress ayaan wadaa oo aad ku dhisan karto sida website-kan oo kale oo markaa website-kaaga aad lacag ka sameynayso dabcan waxa rajaynayna fat insha Allah doolayn sidoo kale waxa jirta inta badan course-ka WordPress-ka dabcan meel walba waxa lagu bartaa lacag balse anigu waxaan ku soo gudbiyaa si free koorsooyinkan aad wada arkaysaan oo dhan si free ayaan ku soo gudbiyaa si aynu markaa u kala faa'iideysano cilmiga markaa aynu wada leenahay dabcan okay sidoo kale saaxiibayaal waxa jirta waxaan leenahay Telegram channel-keena waa kan waxaynu isla xalin doonaa maanta waxa jirta dhalinyaro markaa sharciga AdSense-ga aan dhameystirin oo la soo diido oo markaa loo soo diro warqad noocan oo kala warqadan waxa weeyaan dabcan tusaalahan oo kale minimum content requirement in maarta halkan high content quality quality waxyaabahan marka si ku dhacaan sideeba ayaad caqabada markii warqadan ay confirm dhahaysa horta marka ay confirm dhahaysa u diraysa waa hadii aad maarta ka gudbiso soo kale laakiin hal mid ayaa jirta caqabadan aad ka gudbi karto halka midna waxa weeyaan inaad content-ga ama hab qoraalkaaga aad iska hagaajiso oo tusaale ahaan oo kale hadda website-kan booqano oo aan ku dhufto tusaale ahaan oo kale postiga marka aan soo dhigtay tusaale ahaan oo kale waxaan ku dhufanay postigan kubadda ku saabsan postigan oo kale ku dhufanaysaa postiga waa inuu noqdaa posti fiican oo dheer oo qurux badan oo maasha Allah oo adaday website-kan xayisiina badan ay dhexda ugu jirta sa arkayso adigana saas oo kale ayaa website-kaaga lacag u sameyn doontaa okay sa arkayso postiga qortay hadana su'aalaha kale posti dheer oo qurux badan oo maasha Allah ayaa qof walba looga baahan yahay inuu qoro lama rabo wax yar oo gaaban inuu qorto lama rabo wax yar oo gaaban inuu qoro oo sentence posti dheer oo qurux badan oo maasha Allah hadii aad qorato AdSense-ga uu ku soo aqbalaya soo kale waxa jirta AdSense-ga sharciyad uu leeyahay sharcigiisa waxa kamid ah marka koobaad website-ka inaad u sameyso wax loo yaqaan domain inaad u sameyso website-kaaga aad qurxiso aad nidaamiso aad kala gargarayso oo maarata ka dhigto website aad iyo aad qurux badan hadii aad rabto inaad blogger ku sameysato website-ka dabcan muuqaaladii aan ku soo tusay dabcan ma sha Allah dhalinyaro badan ayaa la soo aqbalay aad iyo aad u badan ayaa la soo aqbalay oo intii samaysatay waa la soo aqbalay muuqaalkan oo kaliya ayay taawadeen dabcan
adigana waa samaysan kartaa sharciga waxa kamid ah qofku horta inuu marka koobaad samaysto wax loo yaqaano domain website-kiisa uu samaysto uu quruxsado kadib markaa yani uu soo dhigo posts uu soo dhigo muddo ku dhow yani tusaalaan oo kale muddo ku dhow 20 bari ilaa 30 bari uu kaadiyo usan AdSense dalban ilaa 30 bari aan dhahay ilaa 30 bari uu kaadiyo usan AdSense dalban ilaa 20 post oo aad iyo aad u qurux badanna uu qofku soo dhigo markuu inta sameeyo kadib website-ka yani inta markuu sameeyayna waa inuu website-ka share gareeyaa oo traffic ku sameeyaa traffic sida loo sameeyo muuqaal dhan ayaan kaga hadlay dabcan muuqaalka marka sida blogger-ku traffic loo sameesto waxaan kaga hadlay muuqaalkan ayaan kaga hadlay dabcan okay soo kale yani inta markuu sameeyo kadibna wuxuu sameeyaa wax loo yaqaan website-kiisa wax loo yaqaan privacy policy disclaimer terms and condition waxaas oo dhan waan ka soo hadlay oo waa muuqaalkan dabcan ayuu sameeyaa dabcan okay inta kadib yani waxa ku baranaysaa muuqaalkan halka saac soconaya oo yani halka saac kaliya soconaya ayaa wax ku baranaysaa waxaas oo idil aad ku baranaysaa inta markaa sameeyso website ku sameeyso domain website-ka hosting-ka domain hosting oo sameeyso oo .com ka dhigto sida martaqaana yani wuxuu magaca hooyada ku marila ka dhigto website-ki aad waxyaabo aad iyo aad maarta quality-gooda oo qurux badan aad inna ka soo koobiyeen oo yani adiga aad qorato sidoo kale dabcan aad sameeyso yani aad u kaadido soo kale website-ka aad share gareyso oo traffic aad u sameeyso inta kadib marka yani ay ka soo wareegto muddo yani 25 bari ilaa 30 bari u dhaxaysay ka soo wareegto marka kadib waxa website-ka u samaysanaysaa privacy policy disclaimer terms conditions waxyaabahaas u samaysanaysaa kadibna waxa sameynaysaa website-kaaga address ayaad hadii aad yani wadamada yani Europe hadaad joogtid dabcan waa okay dabcan adiga ayaa samaysan kara balse hadii aadan joogin dabcan oo sida Soomaaliya kale aad joogto qof ayaa ka codsanaysa family-kaaga kadibna wuxuu ku soo diray wax loo yaqaan address-ka dabcan wax kala maaha waxa weeyaan wuxuu ku soo dirayaa yani postal code iyo magaalada joogo iyo wadanka uu joogo waxaas ayuu ku soo diray oo kaliya waxaas oo dhan waxaad ku baranaysaa saaxiibayaal waxaad ku baranaysaa muuqaalkan aad ku baranaysaa muuqaalka ayaa ku baranaysaa dabcan muuqaalka waa kana aan waxaanaysaa sida Google AdSense loogu xiro website-kaaga blogger-ka ah okay hadaba saaxiibayaal hadda maxaa wada dabcan intaas waa inta qofka looga baahan yahay dhalinyartu waxay sameeysaa iyagoo website-kooda domain u sameeysan oo blogspot ah iyagoo maarta wax yani aan soo qorin quality qurux badan oo post aan soo qorin ama meelaha ka soo koobigristay ayaa waxaan doonaynaa inaan xariisano AdSense hadaba AdSense sidaan moodeen maaha AdSense-ga waxa weeyaan waa shirkadaas oo yani dad ayaa markaa shirkadaas wax sameeysa yani shirkadaas wax dad ayaa maarta xayisiina ka codsanaya xayisiina ka codsanaya waxay rabaan alaabta loo iibiyo alaabta marka loo iibinayay kadib waxay sameeyaan dadkii alaabihii loo iibinayay ay shirkadda Google AdSense waxay soo saaraysaa yani meelahan oo dhan ay soo saaraysaa dashboard-kaaga geesaha dhinacyada waxaas oo dhan ay soo saaraysaa kadib qofkan yani wuxuu doonayaa website-kiisa inuu saarto website qurux badan oo aad iyo aad qurux badan oo laga shaqeeyay oo la habeeyay oo la design gareeyay oo la color gareeyay ayuu doonayaa si website-kan oo kale website la habeeyay oo yani laga shaqeeyay oo maarta yani wax laga bedelo la update gareeyo ay shirkadu soo saaranaysaa ma saaranayso website maarta .blogspot ah yani content fiican ama qoraal fiican aan qorin oo bila image ah oo bila pages ah oo bila hada website-kan wuxuu leeyahay wax walba uu leeyahay dabcan sida arkaysaan marka wax rajeynaa fata insha Allah hadoo alayno soo kale hada course-ka socda dabcan wax weeyaan wax loo yaqaan WordPress blogger waan soo dhameynay oo waaniga in soo tusay anigoo markaa mobile ku sameeyay iyo anigoo markaa computer ku sameeyay labadaba anigoo ku sameeyay dabcan waan soo tusay qofkii doonaya inuu website blogger sameesto dabcan laba qayb ayaan ka sameeyay oo waan soo tusay dabcan okay soo kale yani labada qayb yani mobile qofkii computer ku sameesto waa kana yani saddexda muuqaal oo kaliya weeyaan oo yani laba muuqaal waan kala qaybshay hal muuqaalna waa isagoo hal saac soconaya yani halkii saacadaan kala qaybshay dabcan okay qofna waa kana qofkii raba inuu mobile ku sameesto xogta ugu badan halkan ay ku jirtaa dabcan soo kale saaxiibayaal hadda waxa jirta course marka WordPress aan wado WordPress wax kala maaha waxa sameyn doontaa ama awood u yeelan doontaa inaad sameyso sida website-kan oo kale inaad sameyso oo aad qurxiso website-kaaga naqshadayso kala garayso design garayso run ahaantii sidan wax ku baray inaysan jirin ayaan aaminsanahay xitaa yani meelaha lacagta lagu barto dabcan يعني بس أنا وح كبحية فري أحيانا كبحنا هدي أدوني كورس كاس يعني سوق لصاحب الكورس كاس واكنا ووردبريس كورس فري هذا هو محين السلام عليكم صاحبي بيان وحكى لما إنه قانوني ومحي ووردبريس إنه شرحنا من الكوباد ومحي هرتوا ووردبريس كم هي هاي انتهى وبسيط أدون كل سنة سيدا لو استعمالها هذا بعد واحد ردان كلابتو ووردبريس كوبسيط وين وعالم ك سيدا شركتها عالم كبرء كل سنين هذا جالس يعني توب 10 اوكي اركيسان waxa kamid ah website-dan
halka hadaan ku dhufto shirkadaha caalamka ugu waaweyn oo markaa website-ka WordPress isticmaala طبعا aad iyo aad u badan yahay oo shirkadaha aadan hadda malaysanin ayaa isticmaala Samsung waa shirkadaha caalamka ugu waaweyn waxay isticmaalaan WordPress hadda website-kaas arkaysaan waxaan ku baranaa si free ah ayaan ku baranaa oo طبعا waa maxay WordPress soo kale qaybta labaad waxaan ka dhignay yani sida markaa yani loo sameysanayo domain iyo hosting waayo website-ku wuxuu u baahan yahay mar walba sida website-kan oo kale yani samsung.com soo wuxuu u baahan yahay sida markaa .com-ka loo sameysto .com-ku waxa weeyaan website-kaaga wuxuu hawada ku mari lahaa weeyaan hosting-kuna waxa weeyaan website-kaaga meesha uu daatada dhigan lahaa website-kaagu meesha uu daatada dhigan lahaa su'aal image-ka video-ga waxyaabahaas oo dhan website-kaaga meesha dhigan lahaa weeyaan dabcan waa qaybta labaad waxa weeyaan website-kaaga sida markaa yani WordPress-ka loogu install gareeyo oo markaa dashboard-ka WordPress-ka la geeyo sidoo kale si loo geeyo aad ku baranaysaa muuqaalkaas dabcan okay kana waxaad ku baranaysaa yani dabcan iska daakaas yani waa hordhac yani weeyaan sida post loo dhigo yani post waxa weeyaan website-kaagana post dhigto sida waxaan hadda image-kan waxaan waa post marka example oo qurux badan ayaynu dhigi doonaa dabcan inagu marka kala baran doono qaabab aad iyo aad u badan okay qaybtan waxay ahayd sida website-kaaga theme loo soo geliyo hada website-kan aad arkaysaan yani theme weeyaan waxaan yani ku jira waa theme sida theme-kaas loo soo geliyo ayaa muuqaalkaas ku baranaynaa okay qaybta u dambaysa waxay sida marka categories loo sameysto ama menu categorieskuna wax kala maaha saaxiibayaal waa qaybtan ayaynu baranay tusaalahan oo kale ama website-kan hadaan tago dabcan website-kan hadaan tago sida qaybtan loo dhiso dabcan ayaynu ku baranay soo kale saaxiibayaal inta badan waxa soo gudbiya arrimaha teknolojiyadda ee wax la xiriira intaasna waxay ahayd yani sharciga Google AdSense inuu u baahan yahay website aad iyo aad qurux badan oo maarta dhameystiran oo maarta quality-giisu fiican yahay oo domain leh oo postiyada aan cidna ka soo koobi karin oo muddo 30 bari aad u sugto oo 20 post aad soo dhigto kadib marka aad AdSense-ga codsato AdSense-gana waxaad ku codsanaysaa address aan Soomaaliya ahayn waxaan rajaynaynaa faanta insha Allah ta'ala soo kale asxaabta nagu cusub channel-ka subscribe saara muuqaalkana like saara soo kale saaxiibayaal qof walba oo doonaya markaa inaan website u sameeyo yani aad iyo aad qurux badan yani website-ka aad doonayso waa ku sameeynaa insha Allah diyaar baa ku ahay website nooca aad doonayso aad soo aragto ama naqshadiisa aad haysato ama haddii aad aragto mid aniga inaan kula fikiro oo aan ku sameeyo waan ku sameynayaa hadduu alla idmo soo kale waxaan leenahay telegram channel-keena inta badan waxa uu yaalaa qaybta description-ka ayuu yaalaa saa arkaysaa maalin walba qof ayaa la soo aqbalaa yani teamkeena kamid ah maalin walba qof teamkeena kamid ah ayaa AdSense-ga loo soo furaa saa arkaysaan dabcan soo kale asxaabta fadlan muuqaalkana like saara channel-kana subscribe gareeya saaxiibayaal soo kale saaxiibayaal waxaad la soo xiriireysaan muuqaalkan hadda aad daawanaysaan qaybtiisa hoose ee igala soo xiriiraysaa WhatsApp-ka yaala soo kale yani haddii aad doonayso yani Telegram channel-keena soo gasho waa kan linkigiisa halkan aad ka soo gali kartaa insha Allah